runtii xanuunkaas naguma sahlanayn go'aankuna naguma sahlanayn aniga inaan tago raadiyo oo aan ka sheego imtixaankaas waa fashilmay waana la baaba'shay waxa waaye wax ugu sahlan ma ahayn arrin sahlan ma ahayn waxaan jecelahay ku ordayna ma ahayn waxaan rabaa ardayda iyo waalidiinta iyo maamulada iskuulaadka iyo gaar ahaan maamulka Hirshabeelle inaan inta fahamsiiyo imtixaan waa fashilma saacadan la joogo Puntland imtixaan qaadayso waa fashilma wadamada dariska waa ka fashilma adduunku ka fashilma laakiin inta aan fashilaantu u dhawaana fiirey 104 goobood imtixaan lagu qaaday in hal kaliya waxay ka yartaa 1% fashilku runtii dadaal weyn aan gelnay laakiin waxa jeclaa lahaa inay suuragal idii aan lahayd dadka imtixaanka diyaaray ee qaaday ee kormeeray hadaa arki lahayd shucuurtooda inay idinka xanuun badnaayeen maahan idinka ma xanuun yareen